وحدتك وديدين وحقبطان وحدتك وديدين وحقبطان ولا تعجز بنبي عليه الصلاة والسلام. تعجز هي تعجز لبضب والله ورنك أبو هذا إمام النووي لكن كسر عانة. ولا تعجز هعجز كوا معي قفك بني آدم قال لبا وحبا كل عبيد هذا الكسل والعجز بين هذا. كسلك وقفك وهسي عدم الإرادة وقفك أن دونيس بالهين إنه حقبت بالربين. عجزكنا وقفك يربا إنه وحي قبطه لكن هدنا قابن كارلا وطاقلا. عدم القدرة شقق كستول قبطه وحيد هذا لبدا شيء بو عملك ككوبني إن واحد دونيسيد iyo inaad awoodid markaasuu camalku kuu qabsoomaya inaad doonaysid inaad qabato iyo inaad awoodo. nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu tilmaamayaa inaynan cajsinin dadka badh iyo wax kastoo ay qabtaan taswiif ku sameeya insha allah berraan samayn doonaa. war maanta aad qaban karaysaa maxaa berri camal kale u dhigo maya berraan samayn doonaa wax kasta berru u dhigaya ama maahe brograamyo iyo barnaamij buu degayaa markaasuu leeyahay insha allahu saasaan yeelaya sanadka dambe qur-aankaan xifdinaya sanadka dambe waxaan rabaa jaamacadda ee balas inaan kaga baxo insha allah waxaan rabaa wakhtiga soo socda tijaaradaasi inaan galo waxaan rabaa kutubtaa inaan dhigto waxaan rabaa cibaadadaa inaan sameeyo laakiin afku ka leeyahay waa barnaamij afka ah camal ma gaadhayo isuma bedelayo maxay wax camal isuma bedelayo. in wax la bilaangareeyaa ma xuma laakiin waxaad bilaangareynaysaa waa inuu yahay waxaad awooddo qaban karaysa marka koowaad shay fii maqduurik waa inuu yahay waa inaad qof riyoonaya noqon. dadka badh baa day dreaming adoo soo jeeda inaad riyooto maaha waxaanad samayn karayn haddaad iskaga wadwaddo waa riyo kale un. dadkii hurdaa riyooda dadka soo jeedana qaar baa riyooda oo mar haddaad waxaanad qaban karayn aad ka fekerayso waad riyoonaysaa. waxaad balaangaraysay waxaad qaban karto waa inuu noqdaa. marka labaadna waa inaad fulisaa. fulintu dadka badh baa fulanima haysaa armaa dadku kula yaabaa armaa si xun lagu eegaa armaa shaki unbaaba iskaga soo ururaya dadka badh oo wixii uu qaban lahaa u diidaya armaa lagu idhaahdaa waxaan wuu istusaya waxaan kan buu samaynaya. laakiin nebigu wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacak wastacin billaah walaa tacjis. marnaba ha caajisin. bale nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii u shaqayn jiray ee anas ibnu maalik ahaa ayaa wuxuu leeyahay anuu nebiga u shaqaynaya wuxuun baan maqlaa isagoo ku celcelinayoo leh allahuma innii acuudu bika min alhammi waalxasan waalcajsi waalkasal waalbukhli waaljubn wadalaci اddayni waghalabati الrijaal. isagoo ku celcelinayoo leh ilaahu waxaan kaa magan galay warwarka iyo walbahaarka iyo tiiraanyada iyo murugada. hamigu waa waxa soo socda uu qofku ka warwaro mustaqbalka oo la madoobaada oo dabeetana qofku warwaro. xusniguna waa wixii ka tegay qofka oo tiiraanyo iyo murugo ku reeba. idan waa laba warwar ama laba walbahaar laakiin waxay ku salaysan yihiin midna waa wixii tegey midna waa waxa soo socda. nebigu calayhi salaatu wasalaam labadaba ilaahay buu ka magan gelay.